hay-adda dusha kala socota booliska Kenya IPOA iyo xafiiska dacwad oogaha guud ayaa toddobaadkii hore dalbaday in Axmed Rashiid uu hortago maxkamadda 8 Diseembar si uu uga jawaabo dacwadda loo haysto oo ah in bishii Maarso 2017 uu suuqa Islii ku toogtay 2 wiil oo dhalinyaro ah. askariga ayaa ku doodaya in wiilisha oo lagu kala magacaabi jiray Maxamed Qadar iyo Jamaal Maxamed ay ka mid ahaayeen koox dhac ka geysan jirtay xaafadda Islii, isla maalintaasna ay dhaceen dukaamo ku yaala dabaqa Amal Plaza ee Islii. burcadda oo tiro ahaan gaaraysay 7 ayaa rasaas ku furay ciidanka amniga iyo dadkii meesha ku sugnaa. mid ka mid ah burcaddaasi ayaa watay qori la farsameeyey, waxaana lagu dilay israsaasayn dhex martay isaga iyo booliska, ayaa lagu sheegay codsiga uu Axmed Rashiid u gudbiyey maxkamadda. muuqaal la sheegay in laga duubay dhacdadaasi ayaa u muuqda Axmed Rashiid oo si bareer ah u tooganaya 2 wiil ee Maxamed iyo Jamaal. barnaamij ay BBC-da qaybteeda Africa ay ka diyaarisay Axmed Rashiid oo la baahiyey bishii Sebtembar 2018 ayaa waxa uu ku sheegay in kooxdiisa oo loo yaqaano Pangani 6 ay baacsadaan burcadda, isla markaana ay ku dadaalaan in ay gacanta ku dhigaan nolol iyo geeriba. mar wax laga weydiiyey 2 wiil ee loo haysta dilkooda ayuu sheegay in ay ka tirsanaayeen koox burcadda oo Islii looga yaqaan Superpower, isla markaana uu Maxamed Qadar isku soo sawiray jaakad uu lahaa askari ay saaxiibo ahaayeen Axmed Rashiid oo la tuunsan yahay in ay dileen kooxdaasi burcadda ah. qayb ka mid ah shacabka ku nool xaafadda Islii ayaa ku ammaanay Axmed Rashiid inuu si wanaagsan wax ugu qabtay amni darada jirtay, gaar ahaan xilliyada habeenka. waxa ay ku doodeen in baacsiga kooxda Superpower uu u horseeday in ay yaraadaan weerarada ay fulin jireen dhalinyaradaasi u badan Soomaalida ee adeegsata toorida iyo hubka kale. hase yeeshee dad uu ka mid yahay ninka dhalay Maxamed Qadar ayaa aaminsan in halkii laga toogan lahaa la tuunsanayaasha ay wanaagsan tahay in la mariyo hannaanka sharciga waddanka oo la horgeeyo maxkamadaha dalka. hay-adaha xuquuqda aadanaha gaar ahaan Amnesty International ayaa warbixinno hore oo ay qoreen ku sheegay in Kenya ay ku badan yihiin dilalka sharciga ka baxsan ay geystaan laamaha amniga. xukuumadda cusub ee madaxweyne Ruto ayaa wacad ku martay inay wax ka qaban doonto arrinkaasi, waxaana bishii Oktoobar ay dowladda kala dirtay unug loo yaqaano Special Service Unity oo lagu eedeeyey inay dileen dad shacab ah oo ay ka mid yihiin 2 muwaadin oo u dhashay dalka Hindiya.